Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga waa anigoo ah FM. Waan idin salaamay meel kastood adduunka ka joogteen. Salaan kadib maanta waxaan inoo sameynayaa alaab sharaab u fiican jilba xanuunka. Hadday jilbu ku xanuunayaan oo markasta jilbu ku xanuunaan casiirkan ba u fiican. Haddaad cabtid 7 cisho aniga hadda ka hor waxaan ku dhahay anigoo jilbaa ka joogi kari waayo xanuun iga qabtay baan ku dhawan tabcaanahay baan waxaan ku dhakhtar baan u tegey dhakhtarka markaan u tegay wuxuu igu yidhi x-ray baan ku diray x-raygii markii la ii diray ayaa waxa dhacday waxa igu yidhahay waxba ma qabtid marka waxaan ku dhahay anigoo shaqada jooga ayaan baa waxaan ku dhahay inan baa wuxuu igu yidhi maxaa ku hayeed saa ugu dhitan saan ku dhawan hayade jilib ay xanuunayoon tabcaan ka ahay markaasunbu wuxuu igu yidhi dhegeyso bahalkan baamiyaha weeyaan inagu cuntada ku darsado baamiyahaas wuxuu igu yidhi shiido 7 cisho wallaahi waxaan ku 7 cisho kadib waxaan ku dhahay aniga muddaaban sii wadayba laakiin waxaan ku dhahay xanuunkii oo dhan wuu daayay anigoo tabcaan noqdoon meel kasta waxaan ku lacagta ka dhamato kemis walba wax kulul iyo wax la isku xidhay wax walba kasoo gatay marka waxaan ku dhahay baamiyahani waa bahal aad iyo aad muhiim u ah markaas 4 xabun baad ku daraysaa halkan waxaan ku hayaa spinach iyo mid kale oo ego keelka la yidhaaho iyo mango half maxaan ku dhahay avocado iyo half muusa marka intaas iyo halkan kale waxaan ku haystaa kale maxaa flaxseed iyo goji marka malqacadaas mugeed baad ku dari halkan kale waxaan ku haystaa maxaan ku dhahay huluuda kuma badinaysid wax yaar malqacada yan afkeeda hore baad ku dari marka waan isku soo noqonaynaa intaasan hadda maxaa kale ku dalayaa kaleeto biyahaas coconut-ka laakiin maaha muhiim inaad coconut-ka ku dalsatay biyaad ku darsan kartaa yogurt baad ku darsan kartaa biyo cad baad ku darsan kartaa waxaad adiga jeceshahay marka hadda waan isku soo shiidaynaa waan isku soo laabanaynaa hadda sharaabkii waan isku shiiday waan dhameeyey waa kan marka waa kaas saasuu yahay maasha allah waxaan ku dhibaalkan lagama sheegi karo waa sharaab aad u fiican xanuunna iskuma arkaysid dib u dambeeta biidnillaahi kariim markaasaa u shiido haddaad maalin walba haddaad shiidi karin waxaad samayn kartaa intaad liin dhanaan yarna haddaad rabtood ku tuujisan kartaa laakiin haddaad maalin walba rabay inaad samaysatid isku samayso 3 cishaba ayaan waxdee hadday maalin kastaad same things aad cabtid markasta waad ka caajisaysaa markaas ha ka caajisine markastaba samaysta kala bedbedesha maalin wax qudrad kale ku dhaxdar bahalkan baamiyaha waxaan ku dhahay meelaha dhaldhaleel bay leeyihiin jidhka maxaan ku dhahay xubnaheenu marka dhaldhaleelkaasi wuxuu u fiican yahay maxaan ku dhahay jilbaha marka aad iyo aad baad ugu fiicnaanaysaa xanuunku ku daynaya ilaahay idankiis markaas waa inaad isku roonroonaatiin especially waxaan la hadlayaa dumarka ciyaalka korinaya waxaan ku dhahay iskuulka inta ciyaalka geeyaan kasoo kaxeeya maanta dhan waxaan ku dhahay jidkaasun sii haya waxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa inay naftoodaba iloobaan koob shaaha iyo 2 xabo roodhi naftooda ku qabtaan marka waxaan dhihi lahaa dumar isnafaqeeya ciyaal baad korinaysiin marka waxaan ku dhahay markasta waa inaad isku roonaatid waxaan ku dhahay waa inaad maxaan ku dhahay kiniino fitamiino fiican aad qaadatiin maxaan ku dhahay kan oo kaleeto waa magnesium calcium maxaan ku dhahay ku jira calciumka maxaan ku dhahay kiniinkan kaleetona waxa weeyaan active iron waxaan ku dhahay dhiigu ku badanayaa sida ironka oo kale weeyaan laakiin wuu ka activesan yahay aad buu baawir u leeyahay marka kan waa ka dumarka anaa soo iibsaday maxaa kaleetood cunaysaa lowsaskaas waa walnut maasha allah lagama shaki karo very nice aniga waxaan kasoo iibsadaa mar kastaba maxaan ku dhahay meelaha maaragtay lidalku ku jaban yahay waa kanna waxa weeye almadkaas maalintii waxaad ka cunaysaa horta waa inaad inaad allergy ku tahay oo kale inaad allergy ku leedahay waa inaad eegtid kanna waxa weeyaan maxaan ku dhahay kaasna waa kaas maxaan ku dhahay cashew-ka marka aniga waxaan oo dhan intaan isku wada daro oon madiibad weyn ku shubto ayaan waxaan ku dhahay babseedkana ku daraa maxaan ku dhahay bocorka midhihiisa iyo waxaas oo dhan baan isku daraa ciyaalkan siiyaa anigaa maalintii qaata markaan suuqa aadayo caagad yar baad ku shubanaysaa
markaas waxaan ku dhahay inaad saa iskugu roonaateen waxaan ku dhahay especially dadkina qurbaa joogaa waxaan ku dhahay dhaxamahan iyo qabowgan waxaan ku dhahay inaan isku roonaano marka dad maalintii koob shaha yar iyo laba xabo roodhi cuntadiyo waxaan nafaqo lahayn ma fiicna waa inaad naftaada u dadaashid bal hadda sharaabkaan dhadhaminaya bismillaah والله waxaan ku dhahay waa bahal caadi bahalkan maxaan ku dhahay baamiyaha la dhaawo dhaleeraa hataa dhaldhaleelkiis ma laha maba isjiidani waa iska sharaab iska caadi u yahay marka waxaan ku dhahay dhaldhaleelkii wixii isjiidani ma laha haddaad rabtid baliiskaad ku waxaan ku dhahay suugadaad ku darsanay laakiin sidan buu kaga sii fiican yahay aad iyo aad ugu fiican yahay marka waxaan ku dhahay in I hope waxaan jeclahay inaad ka heshiin sorry horta waan carab lahay wax ma kala inta badan markaas insha allah waad ku fiicnaan doontiin waxaan ku shaarka iyo tom upka iyo like iyo subscribe-kana waa xaggiina haygala baqaylina marka waxaan ku dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu